kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij wareedka warbaahinta Somali Vlogger Media warbixinada aad ku daawan doontaan qaybtan waxaa ka mid ah madaxweynaha Somaliland oo weeraray dowladda Soomaaliya geeska kalena si weyn u taageeray dowladda Itoobiya haddaba waxaan eegi doonaa khudbad uu maanta madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu ka jeediyay baarlamaanka Somaliland khudbadaasi oo ahayd khudbad sanadeedka ee madaxweynaha oo uu dhowr arrimood kaga hadlay haddii aad nagu cusub daawadeen u soo bir oo channelka subscribe saaro haddii aad rabto inoo joogto ku maasan tahay laaksal muuqaalka sina shirkare waa hagaag aan ku bilaabo dowladda xamar waxba yaan indhaha laygu gubin gaabsi baa qaad jidka keliya ee u furan Soomaaliya oo inaan noqono laba dal oo walaalo ah oo jaar wanaag ka dhaxay dowladda xamar waxaan ugu baaqayaa inay garowsato in qarannimada jamhuuriyadda Somaliland gaadhay meel aanay dub u aqbalaynin ka soo madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa maanta khudbad sanadeedka 2026 ka jeediyay fadhi wadajir ah oo ay yeesheen golayaasha baarlamaanka Somaliland isagoo si qoto dheer uga hadlay xaaladda guud ee maamulka oo ay ku jiraan amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. khudbadda ayuu ku bilaabay qiimeyn waxqabadka xukuumaddiisa ah isagoo xusay amniga guud ee Somaliland in la xoojiyay inkastoo uu qiray inay jiraan caqabado amni oo gaar ah isla markaana qaarkood ay ka jiraan deegaanada maamulkaasi. waxa uu si gaar ah uga hadlay dadaalada beelaha ee ka soo cusboonaaday ama dagaalada beelaha ee ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah Somaliland isagoo ku tilmaamay kuwo dib u dhigaya horumarka isla markaana halis gelinaya nabadda muddada dheer la soo dhisayay. madaxweynaha Somaliland ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah inay joojiyaan colaadaha ayna doortaan wadahadal iyo nabad ku dhisan isafgarad. wuxuu sheegay in xukuumaddiisu ay wado dadaalo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada isku haya dagaalada isla markaana odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgaradka looga baahan yahay inay door firfircoon ay ka qaataan daminta colaadahaasi. dhanka kale wuxuu xusay in ciidamada ammaanka la faray inay ka shaqeeyaan xasilinta koobaha ee colaadaha ay ka jiraan si markaa loo ilaaliyo shacabka iyo hantidooda. wuxuu sidoo kale uu tilmaamay in dowladdu diyaar u tahay inay gacan ay ka geysato gurmadka dadka ay saameeyeen dagaalada oo ay ku jiraan barakac iyo khasaare naf iyo maalba leh oo dagaaladaasi ka dhashay. marka laga hadlayo dhaqaalaha, madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay inkastoo caqabado ay jiraan haddana ay jiraan horumaro oo la sameeyay gaar ahaan dhinacyada dakhliga gudaha, ganacsiga iyo maalgashiga. wuxuu carabku adkeeyay in nabaddu ay lafdhabar u tahay kobaca dhaqaalaha isla markaana colaadaha beelaha ay si toos ah u saameynayaan horumarkaasi. madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kale khudbadiisa ugu mahadceliyay dowladda Itoobiya isagoo xusay in xiriirka labada dhinac uu yahay mid istiraatiiji ah isla markaana ay iskaashi ay ka yeesheen amniga, ganacsiga iyo isku socodka. wuxuu tilmaamay in iskaashigan uu muhiim u yahay xasiloonida gobolka. dhanka siyaasadda wuxuu mar kale ku celiyay mowqifka Somaliland ee ah inay tahay dowlad madax bannaan oo mudan aqoonsi caalami ah. wuxuu sheegay in dadaalada diblomaasiyadeed ay sii socdaan isla markaana ay Somaliland xiriiro la leedahay dalal kala duwan oo caalamka ah sida uu sheegay. wuxuu sidoo kale uu ka hadlay xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya kala dhaxeeya isagoo sheegay in wadahadaladii hore aysan weli keenin natiijo muuqata balse Somaliland ay weli diyaar u tahay wadahadal ku saleysan ixtiraam iyo sidoo kale xaqiiqooyin la wada aqbali karo. geesta kale waxa uu ka hadlay in dowladda xamar ay tahaba in Somaliland ay ixtiraamto isla markaana ay daris ahaan u soo dhaweynayso laakiin aysan marnaba korkortan ka galaynin aqoonsiga Somaliland. uu sheegay inuu meel dheer u gaaray isla markaana dalal dhowr ah ay aqoonsadeen. wuxuu leeyahay Somaliland waa dal talaabsatay oo madax bannaan, Soomaaliyana waxaynu ula macaamilaynaa haddii ay diyaar u tahay sida dal daris ah oo darisnimadu waynu wanaajinaynaa ayuu khudbadiisa uu ku sheegay madaxweynaha Somaliland oo maanta khudbad ka jeedinayay baarlamaanka Soomaaliya. khudbadda ayaan ahayd khudbad sanadeedka madaxweynaha. arrimaha doorashooyinka ayuu sidoo kale madaxweynaha ka hadlay isagoo sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah si markaa loo xoojiyo nidaamka dimuqraadiyadeed iyo sidoo kale kalsoonida shacabka. ugu dambeyn madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa fariin u diray shacabka Somaliland isagoo ugu baaqay midnimo, nabad iyo wadajir. wuxuu ku booriyay bulshada inay ka fogaadaan colaadaha
beelaha isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka iyo mustaqbalka jiilasha soo socda. Cabdiraxmaan Ciro ayaana khudbadiisa dhowr arrimood kaga hadla, laakiin waxaa la yaab noqotay sida uu dowladda Itoobiya u soo dhaweeyay oo walaal ugu baaqay ugu tilmaamay geesta kalena Soomaaliya uu ku yiri waa inay markaa Soomaaliya ay ixtiraamto madaxbannaanida Somaliland, isla markaana waxaynu diyaar u nahay inaan ula macaamilno sida dal daris ah, oo waxaa diyaar u nahay in Soomaaliya aan daris ahaan u soo dhaweysano, laakiin wixii ka baxsan oo wada hadal ah ma jiraan, oo Somaliland waa ay talaabsatay, waa ay tagtay, aqoonsigeedana waa mid meel dheer gaaray ayuu yiri madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo maanta khudbad ka jeedinayay golaha wakiilada iyo guurtada ee maamulka Somaliland oo kalfadhigan ayaa noqonaya amaba khudbadda maanta ayaa ah khudbadeeda labaad ee uu Somaliland madaxweynaha Somaliland uu ka jeediyo baarlamaanka maamulka Somaliland. Wadaad ahaan sidee u aragtaa in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu soo dhaweysto Itoobiya geesta kalena uu iska fogeeyo Soomaaliya? Bal aragtidaadu waxay tahay qaybta hoose noogu raabi. Haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalka, waad ku mahadsan tahay. Like muuqaalkan, sii share kare. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. Mahadsanid.